wiil aabihiisa inta uu qabriga ugu daba tegay ka saxiixana weliba wixii hanti uu lahaa aabihiisa si uu dadku ugu sheego in hantidii iyo wixii aabihiis uu lahaa ee dhaxalka loo wada lahaa asaga in si gaara loo siiyey loona saxiixay. laakiin maxaa ku dhici doona arrintani marka uu samaynayo? bal ila daawo. waxaan kaa codsanayaa haddii muuqaalkani uu ku soo gaaro inaad like-garayso siina share-garayso muuqaalkani si uu u gaaro saaxiibo badan oo sida oo kale wanaagsan. haddii muuqaalkani uu ku soo gaaro xilli salaada ama salaad la joogo, waxaan kaa codsanayaa inaad joojiso salaada aad soo dukato una soo noqoto muuqaalka daawashadiisa. goobtani waa goob lagu aasayo nin odaya oo geeriyooday. waxaa soo gaaray wiilkiisa oo ay ka muuqato weliba murugo badan iyo cabsi badan. wuxuu dadka u sheegay inuu aad ugu naxsan yahay oo aan la aasin aabihiisa, laakiin dadkii ayaa ka dhaadhicinaya ma u sheegaya in aabihiisa uu geeriyooday ayna mudan tahay in la aaso ama la duugo. laakiin intaas uguma harin. waxa uu soo galay qabrigii uu aabihiisa ku jiray si uu ugu saxiixdo warqado uu asaga horay u soo diyaarsaday oo ahayd in hantidii aabihiisa uu lahaa asaga lagu wareejiyey, aabihiisana uu asaga u saxiixay si uu dadka hadhow ula wadaago. bal si fiican u daawo muuqaalka ninkani iyo waxa uu samayn doono. waxa uu la soo baxayaa warqad uu horay u soo diyaarsaday ay ku qoran tahay in wixii dukumeenti ama wixii hanti ah oo odaygu uu leeyahay uu siiyey ama uu ku wareejiyey wiilkiisa una saxiixay weliba. bal ila fiiri waxa ku dhici doona asagana marka. waxaa bannaanka ka socota ducada loo duceynayo aabihiisa. intaas waxaa kala weynaaday in hantida aabihiisa uu ka soo saxiixdo. qofka hadduu iimaanka ka tago ama iimaankiisa daciif waa bis, rajo dambe ma lahan. laakiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tusi doonaa ama wuxuu arki doonaa ninkani arrin aad u xanuun badan. inta uusan warqadda ka saxiixan, aabihii wuxuu ka saaray suulka ayuu saaray qaddii loogu talagalay saxiixa ee la saari lahaa warqadda. laakiin intuusan saaran ka hor wuxuu bilaabay ninkii qunfac degdega ayaa ilaahay ku riday iyo xaalad kale. markani waa mar inta uusan aabihiisa geeriyoonin ka hor uu go'aan ku gaarayay in wixii hanti aabihiisa uu lahaa uu isaga sidaas farsamaysan uu ku wareegsado.